maanta oo Arbaco bishuna tahay 17 December 2025 waa maalintii labaad ee runtii gobolkan Kormeer ku joogno shalay baan nimid maanta noo laba anagoo u kuurgalna habsama socodka waxbarashada iyo guud ahaan xaaladda guud ee gobolka iyo magaalada lafteedaba wax walba waxay u socdaan runtii si loogu tala galay waan ognahay waxaan ku jirnaa xilligii imtixaanaadku sidoo u socda iyo si loogu diyaar garoobay iyo si ardaydu soo qayb galayso si macallimiintu u eegayaan iyo sida maamulku uga shaqeynayaba waxaan ku haynay kormeer meelaha aan soo marnay run ahaantii waxa ka muuqday deganaansho imtixaanku si fiican u socda ilaalintu xoog badan control badan saaran yahay gaar ahaan iskuulka aan joognay secondary-ga Ubay ibn Kacab waxaaba ku xiran kamaradihii ilaalinayay oo runtii ah يعني وديار جرو امتحانات كفاينل كا إنه قفكو سفي عنو جسي ديار جرو ولا فهمه كورتك قشكو إن الدولة كليا يددكو أي كجبت بعد كريم وحلو يغني فقرا أي كوب كتهاي وايو إن أرض تيلا صارنا وحصلوا إن أرض قشك خيل عنه أرض قد قشك لقلاد قالمو وحين فرصة وهي إنه أرض تيلا في عن الصواب حسب كوري مادو isla markaana mustaqbalka fogna uu noqdo mid wax hogaamin kara haday dhakhtar tahay haday engineers tahay iyo haday tiknoolajiyada kalaba tahayna qofka aqoon ahaan ku soo baxaya wuxuu noqonayaa qofka ku anfacaya mustaqbalkana taasi waa taa habsami socodka imtixaanaadkana waad ku dadaalaysaan kulleyna webna kacab waxaan ku encourage gareenayaa kamarooyinka galaasada ku xidhan soo kormeernayna in galaas kasta sidiisa loo gaarsiyo function ay noqdaan iskuulada kale gobolkana inta aan lahayn intii la ku buurigelina inta aan lahayn waxaan leenahay aan ugu sii diyaar galoono gudoomiye gobol ee mustaqbalka dhow markaan u fadhiisana xafiiska imtixaanaadka oo soo diyaariyo imtixaankiisa dugsiyeedka ee 25-26 inaan noqono in ay saf hore yimaadaan iyagoo aaminsan controlka qishku kamarooyinkaasi inay wax ka qabin oqdada oo si fahmaan taan ku dhiirigelinayaa maaha kaliya gobolkan awdal laakiin gobolada dalka oo dhan saas ugu dhiirigelin doonaa insha Allah si ay u noqoto controlku mid gacanta ku jira oo adag waxaan ku soo afmeerayaa runtii de wada shaqeynta dhow iyo saan u soconaa waxay u baahan tahay si xoojin iyo adkeyn si aan u ilaalino si ubad aqoon leh oo dhisan inoogu soo baxo mustaqbalka isla markaana aaminsan muwaadinimadiisa shakhsiyeed ee wadanka oo ah kaliya wax ku noqon karo wax ku baran karo mustaqbalkiisuna ku xileeyay waxaan ku soo afmeerayaa aad baad u mahadsantihiin ardaydan waan soo aragnay waxaan ku soo afmeerayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh